gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle Shawri Cabdilaahi Maxamed iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Qawdan ayaa kulan waxay la qaateen bahda warbaahinta ee ka howlgala Buuhoodle. kulankan ayaa mid isbarasho ah waxaana gudoomiyuhu u sheegay saxafiyiintu inay la shaqeeyaan maamulka cusub. waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiinta deegaanka Buuhoodle oo soo dhaweeyay kulankan oo ahaa kulan isbarasho iyo waliba casho oo gudoomiyuhu ula qaatay bahda warbaahinta ee Buuhoodle. Taagayna kulan la qaadanay anaga wax golaha deegaanka waxa weeye Buuhoodle Puntland gudoomiyihii ku-xigeenkii ururka saxafiyiinta waxa weeye magaalada ka howlgala dhamaantii fiisa kala duwan baan kulan la qaadanay. kulankaas oo ahaa waxa weeye kulan wada shaqeynaa iyo wacyigelin iyo isbarasho isugu jira. runtii waa uga mahadcelinaynaa sida sharafta badan ay u soo ajiibeen kulankan u qabanay. marka la uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay u qaateen tirooyinkan u soo jeedinay iyo codsigii magaalada u gudbinay. waa ku mahadsan yihiin ururka saxafiyiinta dhamaantood waliba gabdhaba waxa weeye waa ururka saxafiyiinta la yiraahdo sharaf badan. waana kulankii ugu horeeyay waana gudoomiyaashii mas'uuliyiintii soo maray golaha deegaanka saxaafadda ka warhayo oo iskugu yeedho oo ka wada hadla sidii aayaha magaalada iyo bulshada loogu shaqeyn lahaa. haddana saxafiyiintii gobolka Caynanana waanu ka aqbalay bulshadana waxay ku tiirsan tahay saxafiyiinta bulshaduna waxay ku tiirsan tahay saxafiyiintuna bulshada ay ku tiirsan tahay. waxa Soomaaliduna wax ku mahmaqdaan waxay indha arkaan beelka gooyaan. insha Allah wada aragtaan caawa saxafiyiintii gobolka Cayn iyo gudoomiyihii golaha deegaanka ku-xigeenkiisii kulanka ay wada qaateen. gudoomiyihii ugu horeeyay ee maanta casuumo ama isugu yeedhay kulan saxafiyiinta ogaada in Buuhoodle saxafiyiin leedahay. waan kaaga mahadcelinaynaa yeedhinkaaga wada shaqeynteena insha Allah halkaas ka sii socon doonta. haddana bahda wariyaashan waxaan rajaynaynaa inaan si fiican wada shaqeyno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين أدبا مهسنتين هالكان هولي رئيس عاوة waxaa shirku wada qaatay wariyaasha Buuhoodle iyo maamulka cusub ee golaha deegaanka Buuhoodle. kulankan waxaa kulan casharafo isbarasho ah. runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa. kulankan ay wariyaasha ugu yeereen laba qodob baan ka wada hadalnay oo kamid ahaa wada shaqeynta iyo dardargelinta maamulka iyo saxafiyiinta inay wada shaqeyn dhab yeeshaan. waxaan kaloo ka wada hadalnay waxyaabaha deegaanka ku keenay caqabada in maamulka iyo saxafiyiintu ka wada socdaan. waxaan kaloo ka wada hadalnay maamulka cusub sidii loo sameyn lahaa dalada ku midaysan saxafiyiinta deegaanka Buuhoodle maamulku sheegay ka qayb qaadanayaan. maamulku wuxuu ballan qaaday oo sidoo kale uu aqbalay inaanay saxaafadda wax caburina iyo wax aan ku sameeyay si horena u shaqeynayso balse wixii deegaanka horumarkiisa ah oo dadka deegaanka dibadda iyo gudaha dinagu jirto laga wada shaqeynayaan ku heshiinay. waxaan ku heshiinay in saxaafaddu ay guud ahaan mid noqoto. waxaan ku heshiinay golaha deegaanka iyo saxaafaddu inay hal mid ahaadaan oo warka laga wada shaqeeyo deegaanka horumarintiisa dardargelinta hawlaha cashuuraha hawlaha amniga dhismaha wadooyinka jidadka horumarinta isbitaalada sidii looga qayb qaadan lahaa guud ahaan horumarinta deegaanka dhammaan ku heshiinay. waxaan ku heshiinay in aanu wadaag toos wada yeelano. runtii waxaan aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan maamulka codsanaynaa inaanay nagu noqon sidii dadkii hore aan soo saarnay ee mas'uuliyiinta ahaa intaan meelo wacan gaarsiinay haddana anakii nagu wacad furay baan u sheegnay. runtii caawa waxay ahayd habeen taariikhiya habeen mudan in la xasuusto annaga iyo saxaafadda annagoo ka soconna anigoo ah gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle iyo gudoomiye ku-xigeenka noo suurta gashay caawa inaanu isu keenno saxaafadda Buuhoodle si ay nooga caawiyaan horumarinta kor u qaadidda isdhexgalka bulshada Buuhoodle. sidoo kale waxyaabo aan isla afkaranay waxaa ka mid ah in deegaanka Buuhoodle aanu ka samayno ururo saxafiyiin oo ku midaysan danta magaalada Buuhoodle. runtii is-afkarad weyn ayaana dhex maray annaga iyo dhammaan saxafiyiinta magaalada oo aad caawa u jeedaan kulankaas aan wada qaadanay. runtii wada shaqeyn iyo kor u qaadidda deegaanka bilicdiisa iyo horumarintiisa iyo in laga hortago waxyaabaha xumaanta ah ee deegaanka ku keenaya tafaraaruqa iyo dadka intay iyagoo aan hoosta ka soo xiranaya albaabada saxaafadda laga qaadayo in aanu ka midownay. caawa insha Allah waxaan rajaynaynaa dadweynaha iyo dadka deegaankuba inay ka warhayaan
in deegaankoodii ka dhacday midayn